halkan inaan ka jeediyo abiil una jeediyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland meel kasta ay joogaan abiilkaas oo ku saabsan dhibaatadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo oo runtii uu gaaray burbur aad u culus mid nafeed iyo mid dhaqaale intaba ilaahay idinkii waxaan rajeynayaa inaan si fiican uga soo kabano dadka reer Puntland ayagoo isku tashanaya ay ka hawlgalaan dhibaatada dhacday dad badan baa ku dhintay 22 qof sidaan la socotaan dad badan ku dhaawacmeen waxa sadoo ugu daran waxa weeye burburka hantiyadeed ku dhacay meesha ka dhacay barnaamij badan baan halkan ka wadnay oo ilaa sanadka soo dhaafay soo socday oo ah dib u dhiska magaalada suuqyada magaalada oo la habeeyo oo dadku meel ay ku ganacsadaan oo wanaagsan loo dhiso guryaha aanu dhisnay runtii oo dhaqaale badan aan gelinayna waxa soo gaaray burburaad u tiro badan waxa sadda ugu daran waxa weeye isbitaalka Gaalkacyo oo isbitaal runtii muhiim ah dalkana muhiim u ah oo aad la socotaan oo Gaalkacyo ku taala meel center oo meel walba laga yimaado Ethiopia laga yimaado Koonfur baa laga yimaado bari baa laga yimaado galbeed baa meel aan laga imaan ma jirto waqooyi laga yimaado isbitaalku waa isbitaal aad muhiim ah dhaqaatiir fiican ay joogto dadka si fiican loogu daaweeyo dadka masaakiinta gaar ahaan loogu adeego ayuu ahaa isbitaalka waxa soo gaaray burbur aad u xoog badan oo aad ka daawateen shaashadaha iyo Facebook-yada walba ka aragteen beela tahay waxaan rabnaa marka dadka meel kasta ay joogaan dabcan reer Mudug gaar ahaan meel kasta ay joogaan Puntland dhamaanteed meel walba ay joogto sababta waxa weeye isbitaalku cid gaara iyo reer gaara iyo meel gaara midna laguma daweyn jirin isbitaal wuxuu ahaa Soomaaliya u dhaxeeya iyo Soomaali gudaha meel walba ay joogaanba inay arrinta u kacaan ka qayb qaataan isbitaalkaas dhismihiisana ay ku dadaalaan sidii aan musaakaashan lahayn dabcan dowladda Puntland iyo shacbigeedu iyo wixii gudaha joogaahi waxay awoodooda ay ku dadaalayaan in isbitaalka degdeg dib loogu dhiso mas'uul ka isbitaalka waqti tira badan waa inuu hawl galaa isbitaalku degdeg u hawl galaa marka dadka bulshada guud ahaan ganacsatada culimada diinka qurba joogta hadal binagu wareeriyaan iyo dhaliil iyo intaas bay la taagayeen Facebook-yada waxa weeye hadaa wax qabanaysaan maanta la fadhiya dadkina wax qabataan hadalkiina iyo afkiina iyo adinkiina isla hadal la rabaa waxaan rabnaa marka in arrintaas si degdeg ah aad uga jawaabtaan qof walbaana waxa uu maanta taro iyo waxa uu ku darsado Puntland ayaa lagu xisaabinaya lagu qiimeyn doonaa qofka hadal uu iska wada iyo maxaa la yiraahdaa iyo wartiro waxa weeye warkiisu haynaya waligiis qofkii bulshada wuxuu ugu yaala oo dhibta la qaybsado markii dhibata timaado farxadda la qaybsado markii farxadu jirtana wuxuu noqonayaa qof bulshada ka tirsan macna ugu fadhiya waxaas barnaamijyadaas wax ku oolka dalka dib loogu dhisayna ka qayb qaata marka khayr baan idin rajeynayaa insha Allah guul baan idin rajeynayaa jawaabta degdegana waa ka sugaynaa waa ka mahadnaqaynaa dadkii hawshaan si degdeg uga jawaabay gaar ahaan qurba joogta reer Denmark oo runtii ayagu sida la ii sheegay si degdeg uga soo jawaabay oo hawshaas ka qayb qaatay mahad gaar ayaan u naqaynaa intii kale ayadoo hadda dadaal ku jirta ama ayagu aan hadda xuseen oo wax soo dirtay oo arrinta ka qayb qaadatayna iyana si gaar ah uga mahadnaqaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin guriga khayr baan rajeynayaa Puntland isku tashato gacmaha is qabsato cadowgeeda dhanna waa ku dhisanaynaa oo guryaha ku dayactiranaynaa oo isbitaalada iyada ayaan ku dhisanaynaa gacana isku difaacaynaa loo dhutilmayo loo maaragtay looma ma dhacayso inaan dadku gorda ay laalaadiyaan oo shaabul isu dhiibo waa la iska celinaya insha Allah cadowgaas dadku kusoo duulay marka gacana aan isku difaacano gacana aanu isbitaalada iyada iyo guryaha iyaga iyo dhulka iyaga aanu ku dhisano aad iyo aad baad mahadsantahay khayr baad rajeenay